soo dhawaada dhammaan asxaabta waxaan maanta halkan kaga hadli doonaa qodobka koowaad ama talaabada koowaad ee ka midka ah 8 talaabo ee aad sida fudud ugu baran karto cryptocurrency-ga marka maanta waxaan ka hadli doonaa kow lacagtu waa maxay laba taariikhdii lacagta ay soo martay saddex waa maxay cryptocurrency-gu afar waxaan idin sheegi doonaa dhowr kamida cryptocurrency-ga coins-ka ugu waaweyn ama tokens-ka ugu waaweyn haddaba waxaan ku bilowno waa maxay lacagtu lacagtu waa wax ay bulsho ama dad isla qaateen inuu value leeyahay ama qiimo leeyahay lacagtu waa inay yeelataa 5 qodob shanta qodob ka koobaad waxa weeyaan inay divisible noqoto oo la qaybin karo the units loo sii qaybin karo 10 20 saa loo kala qaybin karo inay noqoto recognizable oo dad badani ay value waxan inuu qiimo leeyahay ay garanayaan inay noqoto durable oo waxani uu de in badan jiri karo imka hadaad tiraahdo waxaan hayaa liintan ka soo baxday beertayda ayaan lacag ka dhigay qof kaga bedelanaya de liintu imsay haynaysaa qofka waxa ma haynayso marka waa inay durable noqoto oo ay in badan qofka hayn karto inay portable noqoto ama aad meeshii aad tagtaba de wax ay ku qaban karto imka hadii aad ka tagto wadankaaga oo wadanka la tagto oo wax u baahan tahay inaad ka iibsato waa inaad wixii ku iibsan kartaa ama ay qiimaheedii ku tari kartaa qodobka shanaad ee ay tahay inay lacagtu yeelato waa scarcity-ga ama waa inay yaraataa yaraantan loogama jeedo in supply-ga lacag ee yaala ama inta lacag ee taala ay yar tahay waxa looga jeedaa lacagtan baahida loo qabo ee dadku u qabaan inay badan tahay ama ay ka badan tahay supply-ga yaala waa inta marka shanta qodob hadii laga helo waxaas lacag buu noqon karaa markaynu isla fahanno waxay lacagtu tahay iyo waxa lagu garto lacagta ama qodobada ay tahay in lacagtu leedahay waxaynu u soo bal jeedsan doonaa oo in jaleeci doonaa taariikhdii ay lacagtu soo martay lacagtu gabigeeduba dunida waxay jirtay 5000 oo sano sida ay taariikhyahanadu qoraan 5000 sano wixii ka horeeyay dadku waxay isticmaali jireen system wax isku bedela ama ii bedela tusaale ahaan haddaan maanta haysto tanag timira oo doonayo dharaan xidho waxaan raadinayaa qof tanagan timirta garanaya inay qiimo leedahay una baahan hayana wixii aan u baahnaayay dharka ahaa marka qofkaas aan u tagayaa waxaan ku oranayaa timirtii aad u baahnayd waa tan anna dharkaas aan u baahanay marka saasaa la iskugu bedelayaa systemka isku bedelka ee berigii hore la isticmaali jiray caqabado badan buu lahaa oo ay ka mid tahay in waxa adiga qiimo ku leh aan qof kale qiimo u lahayn marka aanad de waxaad ku bedelato waxaagii aanad helayn aad u baahnayd caqabada waa la xaliyay oo waxa la soo saaray currency-ga ama lacagtii baa marka laga sameeyay birahan dahabka ama silfarka ayaa laga sameyn jiray caqabad kale dadkii ka hortimid oo ah sideed marka ku garanaysaa inuu yahay dahab sax waxan lagaaga iibsanaya marka waxay noqotay in aad adigu barato sidii loo verify gareynay ama aad u hubin lahayd waxan inuu dahab yahay ama in la samaysto meel dhaxa dahabkaaga soo dhigato oo uu ku siiyo warqad yar oo aad ku cadeynayso inuu dahabka ku hayo marka warqada aad qofkii aad wax kaga iibsanaysaa aad u geyso oo tiraahdo dahabka halkaas yaala warqadiina de wata aad kaga soo iibsato marka wixii aad u baahnayd qofkana wuxuu og yahay warqadan haduu qaato oo ninka ula tago ama meesha dhexe ula tago inuu de lacagtiisii goldkayd kala soo qaadanaya ama dahabkiisii uu helayo marka saasa horta ay lacagtan warqadii ku soo bilaabay lacagtii warqada ahayd waa laga soo gudbay oo waxaynu imika maraynaa digital maaragtay in lacagta laga dhigo oo aad saadkaaga ugu dirto ama aad bank transfer ugu digto ama card yar inta lagu siiyo aad dunida meesha doonto kala baxdo lacagtaadii markii hadaba lacagta digital laga dhigay waxa soo baxay problems badan oo ay ka mid tahay sixir bararkii oo dawladdu lacagta intay doonto iska daabacan karto waxa kale soo baxay in maanta hadii ay dawladda doonayso ay adigoo lacagtaada bangiga ku taalay tiraahdo lacagta ninka yaasiin lama bixi karo oo ay maaragtay kugu fadhiisataba oo laga fadhiisiyo caqabadaha ayaa u noqday sabab inay cryptocurrency soo baxdo cryptocurrency oo hadaba maxaa tahay cryptocurrency waxa weeyaan waa lacag digital ah oo ku shaqeysa shabakad computer oo dunida ku kala daadsan oo ay xadidayaan qiimaheeda dadka isticmaalaya oo aanay cid maamulaysa jirin dawladnimo maamusho bangina ma maamulo
cid maamulaysa ma jirto dadka isticmaalaya ayaa qiimaheeda goynaya marka cryptocurrency waa ka coinska ugu waaweyn ee cryptocurrency-ga waxa kamid ah Bitcoin oo ah cryptocurrency-gii ugu horeysay ee abid la soo saaro Ethereum oo iyaduna ku soo xigtay oo maaragtay technology Bitcoin yara improve garaysay Solana oo iyaduna imika soo kacaysa oo in badan dadku ay aad u xiiseynayaan xallisayna problems ama caqabado ka hor yimid Ethereum iyo Bitcoin marka maanta intaasaan kusoo koobi doonaa insha Allah videogan wixii aad su'aal hayso Discord channel-ka igula wadaag haddii aanad Discord channel-ka wali soo gelinna linkiga hoostan ku soo dhigaya description-ka videogan sii share garee haddii aad garanayso qof ka faa'iidaya like dana nala dhaafin waan idin salaamay